السلام عليكم ورحمة مركلة iyo qaybtii shanaad iyo qisadeeni jacaylkii muqdisho hargeysa maamadii waxay tiri amaantii gabadhay sii waday waxay tiri lakii markii la soo guursaday 2 sanadood waxba ma dhalin sanadka saddexaad bay wiilka abshir dhashay abshir ayeedii baa ula baxday waxay ahayd gabadh la wada jecel yahay labada qofna waxaan laba qof jacaylkooda bulshada dhan ka sheekayso macnaha si isku jeclaayeen waxay ahayd qof reerkii gabadhoodii labaad noqotay macnaha maamadu guriga waxay dhihi jirtay gabadh labaad baa ii dhalatay oo aan dhalay waxay tahay qof wanaag badan bay ahayd ixtiraam badan aad u miyir badan aad u degan walaashii markay soo laabatay waa Safiya waxay noqdeen saaxiib lilaahi ya arooskeeda iyada maxaysid ka ahayd wiilasha qaar kale oo aroostay iyada maxaan ku leeyahay arooskooda wax ka dhisaysay waxay noqotay qofka qulay maamada iyo odaygu ay wax weydiiyaanba ayay noqotay waxay ahayd qof aad aan u jecelnahay bay tiri laba bilood oo qura walaceedu iyadoo yahay oo maxamed mooyaane cid kale ogeyn ayay hargeysa ku laabatay labada mataanahay waxay jiraan 5 sanadood iyo 7 bilood ee uurkooda ka harsanaa markii xagaa tagtay wiil kale ka weynana wuxuu jiraa 6 sano iyo badh adigu sanadii badh bay caruurta kala weynta waxay tahay 5 sanadood iyo badhka adigu 6 sanadood maxamed qolkiisa ciidamo furto ma ila xasuusato waa qolkii maalintii gabadh shaqaale oo jirtay ciidamo furto waxay tiri waxa yaala alaabta shay lagama bedelin daahada waa la meeradii baa loogu caliyaa googlasho guriga taala fadhi carbeedka yaalay abshir yar alaabta ku ciyaari jiray sawirradii iyo sharaxaadii guriga ku dhagsana shay lagama bedelin xusuustaas ku dhaxnooliyay 5 sanadood ee dheeraadka habeenkii gurigiisa isaga tagay hadii hagaajin u baahan isaga hagaajiye hadii isagu safar galo hooyadii ba hagaajisay sababta shaqaalaha loogu diray waxa weeyaan inay wax kala tuurtuuraan isagu shay walba markuu hagaajiyay hooyadii bartiisay dib ugu celiyaan gabadh kalena ma shukansado xiriirna wali ma samaynin guurna hadalkiisa badaa de halkaas isagu ku nooli tii maxamed halkaas aynu kaga baxayna bal waxaan ku yar noqonaynaa gabadhan loo yiraahdo laki hooyadeed maray hadlaysay waxay tiri waxaan dhalay 6 wiil dabeetana markaas wuxuu jiray ilaahu gabadh dadna waxay tiri maalinka dambe ni sadaqad badan oo ahaa abaheed sadaqad intuu bixiyay maalin jimca masaajidka ka kaco wuxuu war walaalayaal igu duceeyay inuu gabadh ilaahay siiyo sanadka ilaahay gabadhiga beero laki baa calool gashay gabadh ka horeysana ma dhalin gabadh ka dambeysana ma wiilal baa laki ka dambeeyay waxaad la kortay sidaas ay ku dhalato gabadh duca masaajid ku calool gashay waxay tiri ma ogtay dumarka Soomaalida mooy dumarada kale in dhaqanka leeyin waxaan soo umaleynaa waa Soomaalida una markay umulayaan guri gaaray sharaxdaan qolkaasi ku umulaan marka afarta ka baxaan bay qolka dib ugu noqdaan ma dhaqankaas waxa ay Soomaalidu qulu u haysato waxay tiri qolkaasaan deganaan jiray wiilasha markaan dhalay wii iman jiruun oo iska waran see tacaawun roon tahay oo ilmuhu yare egeegi jiray oo cabaar haduu la fadhiyo qolkiisa iska soo seexan jiray laki markii aan dhalay wuu yimaada shaqada markuu soo soo ruuxay ilmaha iyo waxay ku duubantay gogasheedii wixeedaba uu xabsaday qolkiisa la taga waral maakeen markii dambe wuxuu dhaynaa afar hameen umulan ama ana joodari soo iibsanayo bartana soo dagay fresh macna ana soo iibsanayo halka ma soo dagaya ama adaa soo guurayo qolkaas in uu wada guurnasan ilmaha habeenkii uu hayo waxaan dhihi jiray war ma imika aad curatay maad ilmaha hore dhalay waxay ku garaasatay iyadoo lagiisa ku huruda ayay ku garaasatay way ku weynaatay waxay tiri 4 jir markay noqotay ilaa uu yimaado meesii xan jirin oo isagu seexiyo عشان لما يعون جرنا أبيهد بيسوق جرت عشان سوق هالشيء هذا الركوع تدارة ساق الركوع ده هرد درتين أنا كعس حوادث قالون يا باهي من يا باهي في السوق يا أيوة جرت أما عشان سوق هالشيء أما تمر هو سوق أما شوكولاتة هالسيد واحد يضم مرن ومي مثلا أنا في ويلش عشان سوق كرسين جرنا تبدو وده ما ننقل تري واحد عليه تري هبين سوق يدو شن ترى وروب ندا أيو جيمي يدو أويسا كسويا دلي عرك يقول كانوا حتى سوق ينتر هدي لجوه هيو ويل سهاي ولا ريت الويل كاسو حيقول دفتاي إنما ما دي بيقولوا لاينا يا inamadi markaan iska hortagaan ridii lameysnu wuxuu ka baxaan guriga waxaan say u baxayaan roob baabadaayay ma baxayaan wuxuu saasaad garatay Soomaha inaan inamadaadu ka bixin guriga u wada hooyan min hadda maaniyo inantayda ka baxana baxaan ku wada bada ku dhaca buuq badana wax inantii yaradii isagu waxa xilligii bay naga carraabeen gaariga dib u raaceen udheel bay soo seexdeen ama hotel dadku soo yaqaan subaxii bay noo yimaadeen marka carada malaha soo baday ku afka buuray waxay tiri horta noloshaasay gabadhan ku soo kortay haddaba ismaan lahayn sida kale inuu u jeceliyo waan ogaa laakiin isbaa lahayn bay gabadha ninka guursado xataa ku qabsan doono oran doona halka agteeda ku qab isbaa lahayn bay waxa jirtay mar Malaysia jaamacad uga soo baxday oo ay rabtay iyadii wiil in loo wada diro markaas wuxuu dhahay may aaba adigu ma tagay sida halkan ka qaado jaamacad caafimaad bay rabtay inay qaado halkan ka qaado
abo waxa dhahdaa halkaas ama la yaro wanaagsan wuxuu dhahdaa halka noqoto wayna anigu shaqada iyo waxaba cid u kala dhiibayo aan kala dabaraad wadna aan ku raaco labadeena wada baxnayo 4 sano halka ku maqantay anigu aan kula joogday waxay timay aabo reer dhan baaba madaxa u tahay seed aniga i raac waa iska daay aabo halkaan ka dalbanaya intaad aniga iyo adigu iyo wixii weyn soo wada raacin u guuri lahay laakiin iyadu waxay noqotay markii ay weynaatay gabadhaad u caqli badan u raxmad badan oo naxariis badan gabadh aad sakiyadu aad u degan oo caqli badan gabadh dadkoo dhan jecel yihiin hadday dhalinyarta tahay hadday labada qaraabe ma anigu ka soo jeeda ama aabaheed ka soo jeeda yihiin waxay gabadh aad loo jecel yahay wiil baa mar soo doonay wiilkii iyadaa diiday oo intuu aabaheed weydiistay buu ku dhahay family baa meel laga ahaa gabadhaasaan rabaa isi dabeetana iyadaa diido tir aaba anigu maradeed wuxuu marada inantaydu ku diiday kuguma khasbi karo laakiin hadda idinku soo heshiisaan waan ku siinaya waa kii wiilkani soo doonay wiilkani markuu soo doonay waa kii diiday dhahay ma bixinaayo waxaan ku dhahay maxaad ugu diidaysaa gabadha wiilka ileen calafku meeshuu galaya adigu ma ogide wuxuu dhahay wax kale uguma diiday laakiin iga fogaanaysaa aniguna ma rabo inay iga fogaato waxaad moodaa inay wax iga maqan yihiin markay iga fog tahay marka ma rabo inay iga fogaato soo mid meelahan joogo waan dusha ka eegto yaan rabaa inay ilaahay calaf ugu daro laakiin dee lagama yeelin waa kuwii rag ka qaaday dee walaaladii iyo isagu wiilashuu dhalay iyo yidhaahdeen xagga u leexo gabadh baa ninay dooratay loo diidaa xishood waa tii loo guuriyey laakiin waxay ka maqnayd reerka dee booqasho ay ugu timaado dib u cararta mooyaane waxay ka maqnayd 4 sano ku dhawaad 2 sano horaana waxba dhalin sanadkii uurka abshir lahayd oo 9 bilooda sanad iyo badhna dee wuu jiray soo 4 sano ay ka maqnayd malaha googo gambar gaaban buu soo intaa mala ugu sii fadhiyay inta waxay ahaayeen dad xiriir ku nool oo telefoonka aan dee uu la soo hadlo sidee tahay aabo waa ka soo ka waxa jirta marmar wax yar oo basiid aad u sameeyso noloshaada oo dhan galaafta oday mar ii sheekay wuxuu dhahay furitaan si yar oo kadisa u furay gabadhayda 40 sanadood dambe nolosheeda raad ku yeelatay oo sababteeda hadda la noolahay buu dhahay markii baan xasuustay ba Ibrahim baa la jiray si yar oo kadisa iska taqaanin iyo gabadh masayir helay oo daga qabo waxoogaa yara murmurmay oo dadna gabadha markay walacti xaaladahoodu waa iska yara khaldan yihiin sidaas halka fog bay tagtay gabadhii laga daba yimi gabadha umushay 2 wiil bay dhashay 2 liceedu 2 bilood oo qurahay maxamed uun baa ogaa markaas waa laga daba yimi way dhashay waxa la yiri gabadha inuu celino wuxuu wax ma idin sheega hadda taana igaga adintaan taana ka baxdo idin ma maraye wiilka gabadha qabow guriga iga soo horjeeda ee ganjeel kale baan reerka ku jira ka saaraya guri isagu leeyahay kaasaa degaysaan shaqana ana ku sameeyay ka shaqaysato soo guur bartaa ku qab iyadii caruurteeda saaynan u eegtaan rabaa caruurta yarna ma raba inay gal dhibaan aan ku reebno ku yiri maxamed caruurta ma jirto iyadii caruurta wada joogayaan wuxuu dhahay aniga halkan ma iman karo because reer dhan baan mas'uuliyadooda sida haday hantidoodii tay haday maxaan ku dhaday ganacsigooda tay sida marka ma iman karo halkan hadaba aanu gabadh ku raacda ma hayo dhahay iyadii markay la hadashay ku dhahda aabo ilaa labadii qof iska heshiiyo oo dee cara burbur aabo nin iyo gabadhii xaaskii baan nahay عربي لبدي سدان بيسكولو أبو إسكول عن دي أبو على دعوة لكن أنا بلقي أبي نتصرف مركلها لكن أبو ديوان سكيشين أبو ما نقول روح بدنين إن ما درت جوري كل عبد وحده أما أنا كإدارة أما ويل كقبة وأحنا أدو أدك صومها أبا هدو كل ده ما أنا كإدارة أما نك كقبة وحالة ده أدو ميركا وقبة ما ورن كرتين كان دورنا يساعته تهاي دنيا والهلاي أبا ميتسوي هليسه marka waxa la aaba halka adag haystaagin wuxuu dhahay wax ma ku sheega isaga hadaad iga doorato haddaan ku diraya waan ku deeriya dib kuma soo hadal qaadayo laakiin hadaad aniga ay doorato isagana waan rabaayo u yeedh isaga iyo caruurtaada iyo adiguba halka agteeda deganaysa ciyaalkan yar yar saddexda waxaad moodaa inuu iminka isagu dhalo ku xurtay macnaa 12 maanta kubad mar la cariyaariyo la eryaraya mar waa kan reerka iyaga u sareeya waxay yiraahdaan amarkooda la celin maayo reerka saddexda caruur waa rogeen haddana sadeedii kala hadna aaba caruurta waxna kibira ka kala daw xudaya maani caruurta saddexda soo gashanaya ciyaalku waxa ay iga dhageysanayaan mala juuqadan waxa dhaana oo haymaado walaana oo halkii anigu aan ku jiri jiray iyo galaan bay iyadu waxay taa aabahay aniga macaan buu leeyahay oo dhiikar buu leeyahay haddaan maanta xataa si kaftana u dhahdo aaba ninkaygaan rabaa inaan ku noqdo isagaan doortay oo aabahay uu xaqi ku soo dago macaankaas intuu ku kaco ay sababteeda ku dhinto nolosheeda waxaa la noolaan doona murugo ah ada aabaha dilay soo afkayga kama soo bixi karto soo wali bal waxaan rajo ka qabaa inuu maalin bal soo dabco waa aabe reerku sida kale oo ma kala xidhana macna maxamed caruurtiisa uu soo eega iyadu caruurtiisa way u geeysan marka fasaxo way la soo joogan reerka haduu qof xanuunsado way tagtaa
isa telefoonka ma kala dhigan waa laba reer oo sida kale u xidhiidha odaygan kaliya waxa ku adag inantaadu ha tagto halka ha aado markaas un baa la marsiin lahay laakiin iminka xataa bukaankan odayga mar telefoonka